shirkan muhiimadda ay leedahay waxa weeye oo waxa ugu horeeya qiimeyn in la isqiimeeyo inaad isqiimeysaan inaad kala aqoon kororsataan inaad dib u milicsataan sanadihii lasoo dhaafay waxa khaldamay sidii lagu sixi lahaa iyo sanadaha soo socda hawsha siday ahaan lahayd iyo inaad kala faa'iidaystaan oo ay idin noqoto garsooryaal waxaa laga yaabaa dhalinyaraha inay halkan joogaan cusub inay u noqoto aqoon kororsi aad iyo aad yaan runtii usoo dhaweynayaa waxaana aaminsanahay inay meeshaan natiijo wanaagsan ka soo bixi doonto insha allah oo dadka garsooryaasha nooga yimid dowlad goboleedyadu ay la noqon doonaan khibrad badan iyo macluumaad badan inkastoo aan jeclaa in kaysas saxa ah laga wada hadlo iyo sidii loo xalliyey kaysaskaas si ay u noqoto wax laga bartay taas waa qiimeynta idinka la raba inaad isqiimaysaan waa qiimeynta idinka la raba inaad isqiimaysaan waxa idin qabsoomay iyo waxaan idin qabsoomin dadweynaha soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed iyo caalamka naftigooda doonaya inay soomaaliya wax ku darsadaan iyagu naftigooda waa qiimeynayaan garsoorka iyo maxkamadaheena waa qiimeynayaan waxay qiimeynayaan sharciyadeena sidaan ugu adagna sharciga noo qoran inaan raacno sharciga inuu yahay kii sarreeyey uusan ahayn qofka inuu sharcigu ka sarreeyo sharciga sidaan u interpret gareyno sidaan u qeexno sidaan ugu apply gareyno xaaladda markaas jirta maxkamadaheenu siday u shaqeeyaan garsooryaasheenu siday u shaqeeyaan siday dacwadaha u galaan iyo institutionka ama hay-adaha noo dhisan siday u shaqeeyaan sida dacwadaha loo qabto oo dee nidaamsan waa la qiimeen caalamka raba inay halkan yimaadaan iyo dadka soomaaliyeed marka ay runtii ka walacsan yihiin arrimaha maxkamadaha taasaa ka mid ah qiimeynteeda waxaa kaloo la qiimeynayaa saan sheegay hay-adaha booliiska oo iyagana qayb ka ah maxkamadaha iyo cadaaladda qayb ka ah maxaa yeelay iyagaa yay ka soo bilaabataa dacwada iyagay ka soo bilaabataa c i d da baarta c i d da waxay u geeyaan maxaanku idhaahda xeeryaalyahana dacwadii waa adkeeyaa ama wuxuu ogaadaa meesha inaysan dacwo jirin intaasoo idil iyada naftigeeda waxaa loo baahan yahay inay leeyihiin capacity aqoonteeda inay leeyihiin daacadnimadeediina la baro inay daacad ka noqdaan shaqadii ay hayaan oo aysan dacwada maleegin qof khaldan inaysan dacwadiisa siinin qof saxsanna inaysan xaqirin waa waxyaabaha nalagu qiimeynayo waxaana lagu qiimeynayaa laba qof oo heshiis galay sidee loo kala saaraa qofka saxsan iyo qofka khaldan sidee loo kala saaraa waxaa jira waxa la yihahda business contractaa jira oo laga yaabo dad shisheeya inay halkan yimaadaan oo laga yaabo dad soomaali ah inay halkan maal gashadaan meeshii hadduusan jirin sharci marka iyo nidaam iyo kala dambeyn iyo sharci qoran oo la qaadanayo oo la isticmaalayo uusan jirin garsoore si saxa u qaadaya haddii qof meeshaan imaanaya oo heshiis ku galaya ma jiraayo haddaba aniga aan iska soo qaado khibraddii aan ka helay 2 sano intii lay doortay sidaad og tihiin shiikhan uu sheegay khayr allah siiyo in ay jirtay rajo xumo badan ee dhanka maxkamadaha ah in dacwooyin iyo cabasho badan laga qabay garsoorayaasha ama cabashooyin badan ay ka imaanayeen dhanka garsoorayaasha oo lagu eedeynaya inaysan caadil ahayn inaysan xaqa aysan dadka kala siin waxaan ku khasbanaaday markaani garsoorayaasha naftigooda inaan cadaalad siino inay tahay waxaan ama eedeyntaan inay tahay wax dhaba ama inay tahay dad wax laga xukumay oo xukunkaasi aan jeclaysan eedeyntooda si aan taas ku ogaano waxaan baarnay xabsiyada dadka ku jira marka dadka xabsiyada ku jira waxaan u saarnay guddi soo baara dadka xaqdarrada ku xiran guddigii aan saaray waxay soo saareen oo ay soo ogaadeen 120 ku xirnaa xaqdarro oo qaarkood $50 iyo $100 ay u xirnaayeen 6 sano iyo 5 sano waxaa xukumay garsoore ma garanayno dee ujeeddada iyo dantuu ka lahaa qofkaas miskiinka ah oo laga yaabo $50 iyo $60 si uun in loogu eedeeyey inuu ku xirnaado 4 sano oo noloshiisii qayb ka mid ah maxaan ku raahdaa halkaas ay uga lunto
ilaahay waa nagu guuleeyey 120 yaan halkaasaan ka soo deennay oo aan aaminsanayn inay ahaayeen dad cadaalad aan loo samaynin. intaas kumaynan ekaan waxaan samaynay guddiyo kale oo aan u dirnay dibadaha. saad ogtihiin 200 in laga keenay Ethiopia oo muddo isaga xirnaa halkaas oo aan qaarkood maxkamadda la saarin. kuwa badan India 100 kor u dhaafay 120 inay ahaayeen baa qiyaasaya. labana meesha ay ku dhimatay allah ha u naxariiste inaan meesha ka keennay. waxaan ka keennay maxaabiis si maxaan ku raahdaa aan xaq ahayn ugu xirnaa Tanzania, Libya iyo Uganda. taasna waxay ka turjumaysaa ballantii aan qaaday oo ahaa inaan siinayo muhiimadda koowaad hawlaha ama arrimaha cadaaladda. waana ku guulaysanay. dadkii ka shaqeeyey xeryaalaha ka mid ahaa iyo looyaro kale oo wanaagsan ajar iyo xasanaad allah ka siiyo. intaas kumaynan ekaan baaritaankeenni waxaa noo soo baxday in garsoorka uu u baahan yahay isbeddel inuu u baahan yahay. isbeddelkaas way fiicnaan lahayd haddii golihii adeega garsoorka uu noo dhisnaan lahaa, laakiin horay ayaa iyaga looga saaray meesha. waxaan ku khasbanaaday marka inaan raadiyo maxaan ku idhahdaa garsoorayaasha ugu fiican. ugu horeeyo guddoomiyaha maxkamadda sare iyo 9 garsoore oo la shaqaysa iyo guddoomiyihii gobolka Banaadir iyo guddoomiyihii Racfaanka. taas waxay keentay rajadii ummadda ay ka qabeen cadaaladda iyo maxkamadaha inay isbeddel ku dhacay ee kalsoonidii soo noqonayso. ogaada haddee wax dhammaystiran ma laha, ilaahay unbaa dhammaystiran. waxaa loo baahan yahay in hoos loo sii daadego oo la gaaro garsoorayaasha degmooyinka in la gaaro. garsooraha marka waxa laga rabo waa qofka dadka ugu wanaagsan horta. ilaaha og qalbigiisa, ilaaha og siduu u fakero, siduu u soo koray aqoontiisa. laakiin annagu sidaan u aragno wuxuu noogu qoran yahay qofka ummadda ugu fiican, qofka kala saara waxa wanaagsan iyo waxa xun, waxa khaladan iyo waxa maxaan ku radaa waxa wanaagsan, qofka kala saara. macnaheedu waxay tahay qofkaasi naftiisu saacidaya. maxaa yeelay dowladdu u shaqeeyo wuxuu rabaa inay jirto oo uu sii ahaado garsoore. garsoorena kuma ahaan karo hadduu ka shaqeeyo cadaalad darro oo xilka waa laga qaadaya. tii aakhirana waa ku harsan tahay. meeshaas meesha adduunkan ka soo gelinayo waxaa laga rabaa garsoorahaas shaqo ma aha waxa uu hayo, waa xil sharafeed weeye. shaqo ma aha qofkii u soo shaqo taga oo u haysta inuu maalin soo goosanayo oo joorniyeeri u yahay. ma aha joorniyeeri. qofkaas wuxuu mas-uul ka yahay ummadda Soomaaliyeed oo dhan magaceedu mas-uul ka yahay. waxa uu sameeyo oo khaldan ummadda Soomaaliyeed oo dhan iyay taabanaysaa. hadduu wax wanaagsan ka shaqeeyana caalamka oo dhan halkaanay cadaalad soo doonanayaan. marka halkays uu halleeyo yaa sharafka Soomaaliya halleynayo, sumcaddii garsoorka o dhan halleynaya, maxkamadaha sumcaddii wasaaradda oo dhan cadaaladda halleynaya. isaga iyo maxaan ku idhaahdaa hay-addu ka shaqeeyo shacabkana kala fogeynaya. markaan leeyahay shacabka kala fogeynaya, hadda waxaan ku jirnaa waqti dib u heshiisiin aan ku jirnaa. waxaad gashaa dhulalkaas waxaa laga yaabaa dadkii lahaa waa hore inay ka tageen, ay u soo noqdeen si ay qayb uga noqdaan dhismaha dalkooda. marka haddii garsoorkaas uu soo dhoweeyo oo uu cadaalad ka shaqeeyo oo qofka xaqiis uu siiyo, wuxuu soo dhoweeyey dib u heshiisiinta iyo iscafiska uu shiikha noo sheegay. yuu soo dhoweeyey. macnaheedu wuxuu ka shaqeeyaa inuu adduunka si fiican ugu noolaado. haddii garsooruhu uu halleeyo marka waa meesha ugu dambaysa oo ay cadaaladda ku hakato wey. wax wanaagsanaan kala ma laha marka. maxaa yeele waa meeshii ugu dambaysay oo dadku aadayeen. haddii meeshii ugu dambaysay aysan khayr lahayn marka waxaa khasaba ammaanka inuu hallaabo oo garsoorahaas laga yaabo in la dilo. waa sax wey. maxaa yeelay ciidanka ma shaqayn karo hadduu og yahay ciidanku wixii la raba ma qaban karo hadduu og yahay inuu cadaalad iibsan karo. keliya maaha ciidanka, sistamka kale oo dawliga oo dhan iyada nafteeda ma shaqaynayso
hadduu og yahay qofka hadduu xumaato sameeyo inaan laga jaaseynayn garsooruhu marka ama dowladdu dhisi ama dowladdu duminaya marka waa meesha ugu dambaysa oo qofka Soomaaliga ah ama qofka muwaadinka ah uu ka raadinayo gargaar uu ka raadinayo haddii marka qofkaasi ay tahay qof dumar ah oo hooyo ah oo maxaan ku yiraahdaa u doonatay cadaalad u doonatay oo cadaaladii ay ka soo weyday waxa weeye inkaarteeda iyo waxa ay sameynayso waa meesha ugu hooseysa ogaada weeye waxa cuqubadana haysa Soomaaliya haysa ay qayb ka tahay qof dhibaataysan oo loo gargaari waayo qof dhibaataysan oo loo naxariisan waayo meesha ugu dambaysa marka oo ummaddu ay ku hakanayso waa xafiisyadiina marka haddii aad rabtaan dowlad u shaqaysaan naga hagaajiya cadaalad iyo garsoorka haddaad doonaysaan inaysan dowladda hara qaadin oo aysan dowladda shaqaynin hadda waa khasab nin shaqadiisa ku cayaaraata annagana waxaan ka shaqaynaynaa intaadan wax walba ku cayaarin inaan shaqada kaa fariisinno marka waxaan idinka codsanaynaa garsoorayaasha iyo maxkamadahu inay u fahmaan hawshay hayaan inay tahay shaqo inaysan ahayn ay subaxdii u ka lahaan aysan ahayn inay tahay subaxdii wax u ka lahayo inay tahay inuu ajar zaa'idsado ama inuu dambi kororsado waa intaas waana shaqada ugu fiican waana shaqada ugu xun ogaada marka shaqo ka fiican ma aqaano oo qof bini aadan subaxdii u ka laho qof subaxdii ajar farta uu qaado iyo qowlka uu sameeyo uu ajar ka faa'iideysanayo ajar ka kororsanayo shaqo ka fiican ma aqaan meelay taallo annagana waxaan ku dadaalaynaa insha allah in aan baahidiina meel saarno oo aan idin siino mushaaharaad idinku filan oo aydan ka raadin wax kale dadka idin hor imaanaya oo cadaaladda idinka soo doontay